hormood cable TV وهيلك شعبك xisbiga mucaaradka ah wadani ayaa jawaab adag ka bixiyay hadal ka soo yeeray wasiirka arimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed xoogahayaha ciyaaraha xisbiga wadani oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale wasiir Maxamed Kaahin ku tilmaamay mid wali ku jira marxaladii mucaaradnimada isla markaas aan suhaysan inuu yahay wasiirka arimaha gudaha Soomaaliland waxaan jecelahay inaan halkan ka soo jeedino hadal ka soo yeedhay wasiirka arimaha gudaha Soomaaliland doraatole markii Hargeysa stadium lagu soo gabagabeynay maratoonkii lagu magac daray Somaliland Marathon wasiirku wuxuu yiri xisbiyada mucaaradka waxay ka soo horjeedaan guulaha Somaliland ma ka soo horjeedaan oo ciyaarihii ay lahaayeen lama qabanayo waa naga qabanay reer Somaliland oo ma aragtaan waxa noo soo baxday inuu wax aragtiya ka haysan doodii taagneed wasaaradda iyo xisbiyadu isku hayeen ahayd wadamadan la aqoonsan tartanka loo qabanayo Somaliland baa lagu qabanayaa iyo ha lagu qabtay sidaynu qabanaayo baahideena sidaynu u daboolana baahi badan baa ciyaari dalka ka jirtay sidee baynu wax uga qabanaa waxa muuqata inuu wasiirka arimaha guduhu ka haysan wax aragtiya ku wasaaradda joogaana u sheegin wasiirku wuxuu muddooyinkii ugu dambeeyay muddo ku siman deyntii Somaliland jirtayba mucaarad buu ahaa dawladii Cabdiraxmaan Tuur Allah yarxam mucaarad buu ahaa cigaal Allah yarxamiyo mucaarad buu ku ahaa riyaale mucaarad buu ku ahaa 8 sano Muuse ninka la yiraahdo Axmed Maxamed Silaayana isagii madaxweynaha imka mucaarad baa hayno iyo ko kulmiyaha baadina dibadda ka joogan mucaarad baa mucaaradadii baad moodaa inuu la adapter la sameeyo ay jirkiisa iyo ruuxdiisa gashay wuxuu wasiirku garanay inuu yahay wasiirka arimaha gudaha laga doonayo wax qabad laga doonayo horumar laga doonayo inuu qaranka difaaco wali laakiin wuxuu isku haystaa mucaarad dawladda dhaliilaya marka waxaan horta mucaarad ma tiid tan tawleeyahay guulaha Somaliland bay ka soo horjeedaan mucaaradku wasiir guulaha Somaliland ma u taqaanaa dhalinyarada reer Borome waraaqdi xafiiska ka soo baxday ku xidhan muddo 7 cisho ku siman xabsiga Borome ku xidhan ee xaqoodii xuquuqdoodii dastuurkii waraaqdi aad xafiiska ka qortay ku xidhan yihiin ma waxaad guusha Somaliland u taqaanaa dhalinyarada darbajiifka masaakiinta ah ee qaranka weydiistay taabiyo taakule ee qaranku xidhay ee maxkamaddu xukuntay ee 6 bilood oo xukuna jeelka lagu dhaadhiciyay qaranka ma waxaad u haysataa guulaha qaranka ma waxaad u haysataa markii aad kulmiyaha haydeen mudaharaadkii iyo buuqii iyo xabadii iyo dhiigii iyo dhimashadii dhalinyaradii aanagu saaxiibka hayne aad banaanka u soo saarteen ku dhintay mudaharaadadii markaasaad u haysataa ay guul maaha guul daradu waxay hoggaanaysaa maamulkaaga wasaaraddaada aad mas'uulka ka tahay Maxamed Chesto hormood cable TV magaalada Hargeysa